بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي سبحانه وتعالى mahad u sugnaatay oo nagu kulmiyey gurigiisa. Waxaan u balansaneen muxaadara isxasuusin in la isxasuusinayo taqwada Rabbi subxaanahu wa tacaala. Waxaana martinoo ah Sheekh Xuseen, aad wada taqaanaan. muxaadaran waxaa soo qaban qaabiyey guddiga masjidka shariif. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo. sheekhana waqtigiisa noo soo horayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo. idinka oo soo xaadirayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo. marka waxaan rabaa inaan sheekha soo dhaweeyo isagoo kelimad xasuusina noo xasuusiyo taqwada Rabbi subxaanahu wa tacaala. sheekhana soo dhawo, Allah ku barakeeyo. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله waan soo ziyaaranay. waxaanad maqal anigu inima sheegayo. diintu waa diin ilaahay uu u soo dejiyey dadka bini aadanka inay ku dhaqmaan oo ay ku noolaadaan oo iyadana ay ku dhintaan. marka bini aadankaa iska jecel mar walba wax cusub oo jadiida in loo sheego, laakiin diintu iyadu waa qadiim. salaadu aan tukanay waa salaadii dadkii horena ay tukanayeen. qur-aanka aan akhrisanay aan haysanno waa qur-aankii dadkii naga horreeyayba ay akhrisanayeen. soonka aan soonno waa soonkii dadkii naga horreeyayba ay soomayeen. xajka aan tegayno waa xajkii dadkii naga horreeyayba ay tegayeen, ay marayeen. meelahay mareen uma soo marnaa. marka wax jadiid oo cusub oo diinta ku soo biiray ma jirto. shareecadan islaamka ilaahay baa soo dejiyey, ilaahay baana ilaaliyey. laakiin dadka diinta qaadanaya ee diinta haysta ayaa kala duwan. qur-aanku waa qur-aankii, xadiisku waa xadiiskii, wacdigu waa wacdigaad hore u maqashay, salaadu waa salaadii, zakadu waa zakadii, xajku waa xajkii. wax isbedele ma jiro. laakiin dadka diinta haysta ayaa kala duwan. 1,000 shilin nin faqiira ayaa gacanta ku haya 1,000 shilin. isla markaana ninka waddankan ugu dhaqaalaha badan leh ama madaxweynaha la odhan karaa gacanta ku haya. lacagtu waa lacagtii, ismay bedelin, laakiin gacanta haysa isbedelaysa. soslama lacagtu waa isku qiimo un. 1,000 shilin buu kana hayaa, waa kii magaalada ugu faqiirsanaa. kii magaaladan ugu dhaqaalo badnaana isla 1,000 shilin buu gacanta ku hayaa. laakiin maxaa isbedelaya? gacantan haysa isbedelaysa. waa inaan u fahamnaa markaa diintan lagu sheegayo ee lagugu wacdinayo ee lagugu baraarujinayo ee lagugu yeedhayo xaggeeda ee lagu barayo eed baranaysid tu hadda cusub oo soo degtay maaha. waa iyadii uun. cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam
diintii nabi maxamed iyo saxaabadiisa dushooda lagu soo dejiyey unbaa maanta innakan inoo taalla bal iyadoo qaabkii beriga ay u dhignayd qaab ka habaysan oo ka nidaamsan maanta innaku aan u helay asxaabta rasuulku qur-aanka isagoo qoran maysan helin cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaa cahdigii abi bakrin asidiiq qur-aanku uu baxsanaa ninba inbuu qur-aanka ka hayay saxaabada rag baa laba aayadood oo kaliya hayay rag baa suurado dhan hayay rag baa qur-aanka oo dhan wada hayay qur-aanka in la jamciyo taladaa ninkii soo jeediyey cumar bnu khadaab buu ahaa radia allahu canhu wa ardaah khilaafadii abi bakar markii dadka muslimiintu ay halganka diinta ee jihaadka ay u baxayaan uu batay saxaabadiina la arkay inay tiradoodu ay yaraanayso oo ama ay dhimanayaan ama ay weynaanayaan ama jihaadka ay ku dhimanayaan markii la arkay ayuu cumar bnu khadaab allah raalli ka noqday suuradiibuu ka dhex dhiibtay talo oo wuxuu soo jeediyey in nin walba qur-aanka intuu hayo intoo loo tago in laga soo qoro meel lagu qoro walaakiin abubakr asidiiq uu iska diiday wuxuu yidhi cumarow talada aada soo jeedisay mayto aan qaadanayna maahayna ka joog buu yidhi waayo qur-aanka in la jamciyo haddii arrinkaasi uu arrin saxa uu yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyi uu ku soo degayaa lagu odhan lahaa qur-aanka jamciga meel ku urur haddii kale uu siibanayay walaakiin cumar bnu khadaab tala soo jeedinta kamuu hadhin bal 2 bilood baa la yidhi ayuu taladaa ku celcelinaya u lahaa war qur-aanka han qorno oo ragga quraada ama kutaabteen qur-aanka qora ee cahdigii nebiga sala allahu calayh wasalam waxyiga qori jiray handirno oo nin walba intay meeshiisa saxaabi walba ugu tagaan dowladdii islaamkuna markaa way ballaadhatay ilaa shaam bay cagacagaynaysaa ilaa iyo waxay maraysaa maaragtaanay urdun iyay maraysaa jasiirat alcarab oo dhan bay risaaladu gaadhay saxaabadu markaa meeshay gaadhaanba ka soo noqon maayaan 2 bilood taladaa cumar markuu ku celceliyey ayaa ilaahay abi bakrin asidiiq radia allahu canhu laabtiisii baa ilaahay ku sharxay inuu ra'yigaa cumar uu soo jeediyo ra'yigaas uu yahay sawaab deedna markaa raggii cahdigii nebigeenna sala allahu calayh wasalam waxyiga qori jiray ee waxna akhrin jiray waxna qori jiray saxaabada intooda badan ummiyiin bay u badnaayeen uu nebigeennaa sheegoo yidhi naxnu ummatan ummiya laa naktubu walaa naqra' annaku waxaan nahay buu nebigu uhi ummad aan waxna qorin wixii loo qorana aanan akhrin baan nahay buu rasuulku yidhi waa mucjizaadka ilaahay nebi maxamed uu siiyey nebi ummiya waxna aan qoraynin wixii qoranna aan akhrin karaynin ayaa qur-aankaa dhan ilaahay qalbigiisa uu ku soo dejiyey wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin qur-aanka waxa uu sheegay ilaahay in laabta nebi maxamed qur-aanka lagu soo dejiyey in jibriil calayhi salaam loo soo dhiibay deedna jibriilna uu laabta nebi maxamed qur-aanka uu ku dejiyey markaa buu nebigu u maleeyey qur-aanku inuu dhaafi karo deedna markaasuu ka daba akhriyey jibriil calayhi salaam uu dadejiyey markaasaa lagu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjalahu ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah qur-aanku inuu kaa baxsado oo kaa dhumo ha ka yaabin baa nebiga lagu yidhi maxaa yeele qur-aanka ilaahay baa ilaalinaya laabta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa laab ilaahay caza wajalla ugu talagalay qur-aanka inay xambaarto waxa bini aadanka wasaawista qalbigeenna ka buuxo oo dhan baa nebiga qalbigiisa laga safeeyey marka halkaasaa qur-aanka lagu dejiyey marka abi bakr asidiiq wuxuu yidhi waa hagaag qur-aanka la soo jamciyo cahdigii nebiga raggii qur-aanka qori jiree kutaabta ahaa ayaa loo kala diray markaa dhul alliyo dhulka islaamku uu gaadhay oo la yidhi nin alliya ninkii saxaabiyeed meel ugu tagtaan qur-aanka intuu hayo ka soo qora maxaana qur-aanka lagu soo qoray marka ila warqadahan iyo buugaantan ma ooline hargaha xoolaha iyo maaragtaane lafaha geela iyo geedaha timirta jirridda marka la kala dallaaciyo waa caddaan
meelaha noocaasa qur-aanka markaa lagu soo qoray nin walba markaa intuu hayay baa markaa laga soo qaaday qur-aanka hal aayada awaakhir suurati tawba laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim fain tawallow faqul xasbiya allah laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim labada aayadood ee suuratu tawba ugu dambeeya hal nin oo saxaabiya keliga laga helo loogu tegay baa la yidhi khusayma radia allaahu canhu ayaa loogu tegey markii abubakar loo sheegay la yidhi labada aayadood saxaabiga keliya laga soo helayna abubakar wuxuu yidhi wallaahi waxaa ii ziyaaday kalsooni cumar binu khadaab talada uu soo jeediyey ilhaam xagga ilaahay inay ka timid ahayd baan aaminsaday buu yidhi markaas marka qur-aankaa dhan baa zamankii nebiga sidaa u baahsanaa oo cahdiga abubakarna sidaa u baahsanaa cahdiga abubakar qur-aanka markii la soo jamciyey guriga xabse ayaa la dhigay baa la yidhi khilaafadii cusmaan binu cafaanna qur-aanka musxafka lagu jamciyey oo manaaqibta cusmaan binu cafaan marka la tirinayo waxyaabaha cusmaan uu la keliyoobay waxaa ka mid a baa la yidhi waa ninkii musxafka maaragtaan iyo cahdigiisiiba musxafka qur-aanka la qoro la taabacay jaamicu lqur'aan baa cusmaan bin cafaan loogu magac daraa idan qur-aanku markaa halkuu ku qornaa laabtooduu ku qornaa bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm wamaa yajxadu biaayaatina ila aldaalimuun ilaahay waa kii ku lahaa qur'aankan laabta wuxuu ku sugan yahay dadka ilaahay uu cilmiga uu siiyey dadka ilaahay qalbigooga nuurka iyo iimaanka iyo yaqiinta uu dhigay ayaa qur-aanku laabtooda ilaahay ku ilaaliyo ogaada axaadiista nebi maxamedna waa la mid sala allahu calayh wasalam cahdigii muxadisiintu ay soo baxeen ayaa xadiiska la soo jamciyey isagana xataa nimanka yahuudda waxay isku dayeen intaasoo axaadiis oo maaragtaane israa'iiliyaada inay axaadiista nebiga ku dhex qariyaan nin zindiiqa oo khilaafadii waxaan jecelahay inay ahayd maaragtaane haaruun urashiid inay ahayd ayaa la soo qabtay markaasaa korkaa laga gooyo markaasuu qoslay maxaad ku qososhaa lagu yihi waa nin dhan toog lagu wado maaragtaane in la deldelo ama la dilo wuxuu uhi intaas oo axaadiis oo mawduuca oo israa'iiliyaada ayaan axaadiista nebi maxamed ku dhex qalday buu yidhi marka taasaa faa'iidaya buuhi aniga waxa uu doonaya markaa in la yidhahdo waa lagaa dayniyey lagu dili maaye axaadiistaa noo sheeg laakiin waxaa la yidhi may qaadoo qoorta ka gooya buu yidhi haaruun urashiid waxaan haysanaa buu yidhi rag uu ka mid yahay maaragtaane cabdullaahi ibnu mubaarak raxmat ullaahi calayh rag noocaasa hebel iyo hebel 3 nin buu tiriyey markaa raggaasaa kala garan doona buu yidhi qowlkii nebi maxamed ka soo baxay iyo qowlka maaragtaane bini aadan kale uu yidhi rag ilaahay qalbigooga nuur uu geliyey oo kala saarayaan haysanaayo buu ku yidhi marka diinteennu wixii horay ilaahay nebigu ay u sheegeen unbaa dadka loogu celceliyaa laakiin dadka diinta haysta ayaa kala duwan oo kala bedelan saxaabadu markay tiradoodu ay yaraatay ee dadkii kale ee islaamka jadiidkiina ay tiradoodu badatay ayaa nin kastoo saxaabiya markaa xer badan buu yeesho diinta ka baratay cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu ayaa ku yidhi ardaydii uu waxbarayey wuxuu yidhi antum akharu salaatan waakharu siyaaman waakharu ijtihaadan min asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam buu ku yidhi wuxuu yidhi asxaabtii nebi maxamed allah raalli ka noqday buu ku yidhi ininkaa ka salaad badan ininkaa ka soom badan ininkaa ka dadaal badan buu yidhi xagga cibaadada dadaalkeega iyo diin barashada walaakin kaanuu khayran minkum buu yidhi laakiin se way inaga khayr badnaayeen buu yidhi lima yaa abaa cabdiraxmaan bay ku yidhahdeen say ku dhacday dakarta lana kahrata asalaa wa kahrata asiyaam wa dakarta lahum kahrata alkhayr waxay ku yidhahdeen annakana waxaad nagu ammaantay inaan ka salaad badan nahay oo aan ka soom badan nahay oo xagga cibaadada maaragtaane uu dadaalkeegana aan ka dadaal badan nahe ayakana khayr badni baad ku sheegtee see nooga khayr bateen baa lagu yidhi laba khasladood oo cajiib uu sheegay cabdullaahi bnu mascuud
وحر كانوا هم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة بويلي أيكو وحي هايان الدنيا دad ku dhex zaahiday bay haayeen aakhradana jecel bay haayeen iyagu dad adduunyadan ay dhex joogaan ku dhex zaahiday adduunyada way haysteen hadday haystaanna adduunyadu qalbigooda kuma jiro inay bannaanka ka taalla iyaga innaka kii aanan haysan adduunya qalbiga kaga jirta ka haystana maxaad u malayn markaa kii aan adduunyaba haysan bay faqiirka ahaa ayay adduunyadu qalbigii madaxii ka gashay way wareerisay kii haystana markaas sidee u gashay kuwii adduunyada haystay sida banoonidii ay adduunyada ugu ciyaaraysaa maanta asxaabu muxamedna maxay ahaayeen way haysteen adduunyada laakiin adduunyadu qalbigooda kumay jirina bannaanka ka taalla iyaga kumay dhex jirin shayga markuu bannaanka kaa yaallo uu dhib yar yahay maogta waa fudud yahay waad iska dhigi markaad doontana waad qaadan laakiin shaygu markuu qalbiga kaaga jiro ka warran ka tukan kari maysid oo ilaahay ka xasuusan kari maysid oo diintaada ka baran kari maysid oo diintaada ka shaqayn kari maysid meel bay kugu xidhi abu طalxa radia allaahu canhu ayaa soo galay masjidkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markaa buuhi yaa rasuula allah aayaddan aan maqlay oo maanta dushaada ku soo degtay buu yidhi aayad baa soo degaysay way beddelaysa iyaka innakana maanta soddonka jisa qur-aanka haddii ummadda lagu dul macneeyo wax isbeddela uu yar yahay maanta lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wamaa tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim aayaddan qur-aanka fii suurati ali cimraan lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun albir haddaad maqashid waa jamc khayr dhammaantii weeyaan wanaag oo dhan marka la yidhahdo waa albir ilaahay baa le wanaag oo dhan dhammaantii heli maysaan ilaa waxaad jeceshihiin aad alla dartii aad u bixisaan mooyaane mima tuxibuun waxaad jeceshihiin maxaan jecel lahay innaku maanta sadaqadda markaan bixinayno ma waxa agteenna ugu qiimo badan baan bixinaa mise waxa ugu yar 1,000 shilin mise 100 shilin baad bixin u fiirso farqiga annaka oo zamankan joogna oo aayaddii maqlayna oo xadiidkii nebigeenna maqlayna calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigaa siday aayaddaa u beddishay maqlayna inama saamaynaysa aayaddaasi qur-aanku ina axabba amwaalii ilaya bayruxaa buu yidhi xoolahayga nin xoolo badan buu ahaa beero badan buu lahaa xoolo badan buu lahaa ganacsi badan buu lahaa xoolahayga taan ugu jecelahay buuhi waa beerta bayruxa la yidhaah beer halkay ku taallaa madiinat almunawaray ku taallaa beertaasaan ugu jecelahay buuhi beeraha xoolahayga weliba masjidka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam muqaabilkiisay ku taallay hadh macaanna way lahayd biyo macaanna way lahayd weliba nebi maxamed sal alla alay slam markuu salaadda uu ka baxo beerta bayruxaa la yidhaha intuu galo hadhkeygana uu nebigu hoos fadhiisanayey biyaheega macaana nebigu cabbi jiray beertan intay qiimo leedahay markaas shakhsiga beertan galaya ee biyaheega isticmaalaya ee hadhkeygana isticmaalaya maaha boqor waa sayidu waladi aadam calayhi salaam aadam calayhi salaam wiil dhasha aadam u dhalay shakhsiga ugu sayidsanaa weeyaan waxa beertan isticmaalaya hadhkeedii biyaheega intee sharaf beertaa soo galaysa sharaf iyo karaamo leedahay maca daalika wuxuu yidhi beertaasaan xoolahayga ugu jecelahay waan bixiye buu ka yidhi markaa buu nebigu yihi bakhin dalika maalun raabix dalika maalun raabix bakhin kelmaddaasi luqada af soomaaliga ereyga ugu dhow markaan waan baadhay moogtahay kitaabkan riyaadu saalixiinkan af soomaaliga lagu tarjumay ee ina baaburakiis uu turjumay ayaan idhi bal kayf eeg bakhin
ereygan wuxuu soo qaatay markaa aga ay isticmaalaan Soomaalideena xaggaas yani waa kelmad la isticmaala goorma marka qofku shay uu la yaabo la tacajubo marka buu nabigu yiri maalkaas waad ka macaashtay buu ganacsiga tijaarada adiga ilaahay maanta in dhex martay waad ka macaashtay walaakiin waxaan u arkaa buu nabigu ku yiri inaad qaraabadaada aad siisid iyaka u xaq leh qaraabadiisii in alli intii faqiir qaraabadiisa ku dhex jirtay intuu u yeedhay ayuu beertii dhanneed u qaybiyey saamayntaas ayaa looga dan leeyahay qur-aankan ila qur-aanku waa wacdiga ilaahay qur-aanku waa wacdiga ilaahay qur-aanku waa dacwadda ilaahay innaka uu ina siiyey qur-aanku waa dacwad fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid nebi maxamed sal allahu alay slam markuu ummadda risaaladda uu gaadhsiinayey qur-aankanu buu dushooda ku akhrinay wax kale kuma akhriyeen qur-aanka dumaad nin la odhan jiray baa magaalada maka ayuu soo galay majaalistii qureysheed buu markaa fadhiistay waa maalmihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nebinimada iclaamiyey weeyaan waa qariib marka arrintu adag tahay xilligaas majlis allihii majlisku fadhiistaba wuxuu maqlaa nebiga la hadal hayaa oo la leeyahay maxamed hee uuna dhibay ilaahyadeenii buu ceebeeyey aabbayaasheenii dhintay buu ahlu naar ku sheegay odayaashii caqliga badnaa ee reeraha u talinayeyna maangaab inay yihiin buu ka soo qaaday diin jadiidana uu noola yimiday majlis kastuu fadhiisto ereygaasaa la hadal hayaa marka abu jahal baa yidhi war ninku waa nin waalana inaga daaya buu yidhi maxamed uu waashee inaga daaya ila nebi kastoo adduunka ilaahay uu risaalada u soo dhiibay dadkii ehelkiisa haba u horreeyo ka hor yimiday marka dumaad ninkani wuxuu ahaa nin dhakhtara buu ahaa dadka maskaxdu ay dhaqaaqdo ee dabayluhu ay dardaraan ee jinku taabto ayuu dabiibi jiray baa la yidhi markaasaa waxaa igu dhacday buu yidhi qalbigayga maxamed waa nin fiican oo akhlaaq wanaagsan oo saadiqul amiin la odhan jiray malaha dadka waxaa iskugu dhaceen xanuun baa soo gaadhay bal ha dabiibtid markaasaan maalintii baan maka ka raadiyo waan waayey buuhi maalintii labaad ayaan arkay buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo halka maqaamu ibraahim 2 rakaca ku tukanaya markaasaan gadaashiisaan fadhiistay waxaan arkay buuhi siduu u cibaadaysanayo si dadka ka duwan buu nebigu markaa ilaahay u caabudayaa cibaadadii jaahiliyaddii iyo qurayshtu ay lahayd tu ka duwan buu nebigu la yimiday markaa buu gadaashiisa fadhiistay salaaddii markuu ka baxay buu yidhi yaa muxamed buu ka yidhi markaa buu nebigu u wada jeestay ixtiraam nebi maxamed qof hadduu xagga dambe kaga yimaaduu la hadlo qoorta ma wareejinayn baa la yidhi bal isaga dhan baa qofka qaabilayay waa qadarin uu nebigu qofka bini aadamka uu qadarinayo uu qiimaynayo marka damaad baa ku yidhi magaalada iyo waddanka anu waan ka maqnaa oo cilmi baan u maqnaa dhakhtarnimo inaan soo barto waanan maqlay inaad maaragtaanay majlis kastoo fadhiista adiga lagaa hadal hayaa marka inaan ku dabiibaan doonayaa buu ka yidhi wax qarashana kugu soo dallici maaye bilaash baa kugu dabiibiye laakiin inaan ku dabiibayo golow buu ka yidhi yaa la dabiibayaa marka aniga imika adigaagan iska fayo hadduu ninka idhahdo war waad waalatay kale ku dabiiba ka waran waa aniga adigayo waxaa laga yaabaa inaan adduunyada ku waalanahay iyo sheekadeeda oo sidii ilaahay ugu talagalay baan u socono si kale u soconno bal maxaad u malay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi dadka adduunyada ku noole bashariyadda u gurmo wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin basharka oo dhan baa lagu yidhi raxmad baa u teorda ummadda gaadhsii risaaladda kaasaa la leeyahy waad waalantoo ku dabiibaynaa ina ogolo way ka warrama
markaa buu nabigu u dhageystay ma cadhoonin isma difaacin oo war ma waali ma odhan saaxib alxaq isma difaaco laanna xaqu waa maalintu way caddahay habeenkaa madowga mugdiya habeenkaa u baahan toosh iyo laydh in loo isticmaalo laakiin cadaaddu waa iftiin uma baahna iyadu toosh xaqu waa caynkaas deedna markaasuu nebigu sal alla alay slam ku hadalkaagii maad dhammaystay haa waan dhammaystay fasmac maa aquulu laka buui haddaba anigana iga dhegaysa waxaan ku leeyahay buu yidhi adkaartan markaa istiftaaxa ee khudbadaha marka la akhrinayo khutabadu ay ku furfurtaan alxamdu lilah ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuh wanu'minu bihi wanatawakalu calayh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah erayadaasuu nebigu markaa akhriyey markaa buu dhegaystay ninkan waa nin carabiya luqada carabigu fahmaya markaa buu haddana iigu celiye markaa buu nebigu ugu celiyey calayhi salaatu wasalaam haddana mar saddexaad buu iigu celi ugu celiyey ilaa maa tadcuu dadka maxaad ugu yeedhaysaa ii sheeg buu ka yidhi bal waxaad dadka aad u bandhigayseed ugu yeedhaysid maxamedow ii sheeg waxaan dadka ugu yeedhayaa buu nebigu yidhi dadku inay ilaahay keligii ay caabudaan asnaamtan iyo qoryahan iyo dhagaxdan iyo dhirtan ay caabudayaan iyaku ay samaysteenna inay ka dhex baxaan baan doonayaa buu yidhi qaraabada la gooyey in la xidhiidhayaan doonayaa buu rasuulku yidhi xuquuq ilaa xuquuqdii bashariyadoo dhan baa dayacnayd oo duntay bani aadamku xaqa ilaahay markay gartaan xuquuqda dhexdoodana markaasay garan karaan laakiin allihii abuuray xaqiisa markay garani waayaan xuquuqda dhexdoodana waa dayacmiyo ogow silat alarxaam buu nebigu yidhi intaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi ubsud yadaka ubaayicuka yaa rasuula allah gacanta ii soo dhiib buu ku yidhi waan kula mubaayicoonaya baycadu waa ballan sharad baan galaynaa waan sharatamaynaa cahdi weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi wa calaa qowmika buu yidhi addomaad xadiisku waa fii saxiixi muslim buu ku yaalla wa fii masnad imaam axmed raximahum ullah waxau nebigu ku yidhi adiga keliga maaha waxa ballanta ila galaya tolka qoomka aad ka soo jeedadna inaad diinta aad gaadhsiinaysid ballanka iigu dar buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam baycadu waa taas ansaarna nebigu uu la mubaayacooday baycatu lcaqaba muxuu kula mubaayacoonayey waa islaameen iyaku laakiin waxaa lagula mubaayacoonaya iyakana haddii nebigu magaalada madiine uu ansaar uu ugu tago inay u difaacayaan sida dhashoodii reerahooga dhibta uga difaacaan ascad binu zuraara oo ugu yaraabaa istaagoor yaa rasuula allah baycadaadu wax sahlan maaha buu ka yidhi adiga ballanka adi lagula galaayo ma sahlano raggii ansaarteennu qabada ahayd buu ascad ku yidhi war gacantaad nebiga ula ordaysaan ka jooga buu yidhi ha ku degdegine ka fiirsada yaa rasuul allah kelmad baan odhanaya ii ogolow hadal buu nebigu ka yidhi tolkay baan horta la hadlayaa buu yidhi ansaaray dhegaysta buu ku yidhi gacanta nebi maxamed aad gacanta u saaraysaan aad kula ballamaysaan inaad difaacaysaan ashraaftiinaa ku dhammaan doontay buu yidhi raggiinna iniigu caqliga badan leh ee codkarka waad dhammaanaysaan buu ka yidhi dhallinyaradiinu way ku dhammaan ubadkiinu way ku agoomoobayaan hooyooyinkiina way ku gablamayaan xaasaskiinuna araamilay noqon doonaan araamila dumar garoobay noqon doonaan dadka adduunyada joogo o dhan baa dhinaca naga wada mari buu yidhi hubkay noo soo qaadan doonaan qaadashada nebi maxamed ma sahlana buu ku yidhi markaasuu yidhahdee war waan qaadanaynaa markaa buu ascad baa war ka jooga war ka fiirsada xoolihiinaa ku dhammaan oo dhallinyaradiinaa ku waayaysaan oo raggiinna caqliga badan leh codkarka ee ogaasyada ku dhammaan doona difaaca nebi maxamed oo ubadkiinna agoomma ku noqon doona oo hooyooyinkaa ku gablami doona oo dumarkii gabdhaha ku noqon doona araamila garoob bay ku wada noqon doonaan
كفر صدع ما يوقعنا أن أسعد وأذوق نوب النبي كود هذين مركب يا رسول الله بلنك أنكنا كلك الديار بانون هي أنكنا محل لنا نوشك بكيد مركب النبي يقول جنة الذين نكو حل الذين جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنة ليديه جنة محاكوين وحكوين ما بجرب جنة خلاص بيعادوا مركا واتاس دينتي وإسلا دينتي لكن دتك اسبدلي مانتا آيات القرآن كين مغلين وان مغلي حديث كين مغلين إنكونا وان مغلي لكن اسبدل ما مغضى مانتا نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم ورجل ابن مبارك رحمه الله آداب ير يعني رقم وناكسن أو آداب وناكسن أو دينتين وأين أمرتي أو أنكو رقنو نولشينا كم مغضى أيان وقباه بدن هاي ورجل عبد الله بن مبارك أو قوم بدن أو نلقو رقمين وحبا لك رقمين كثرة المعلومات أهم شيء يسوع وعنو بهنا كثرة معمولات إن الدين تانو نقطة رقم إن الدين تانو مجتمعين كم وقته آياتنا النبي ندوشي سكسو دكتي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي باشاقي ما أنت با إلهي لي دينتيني وانيني دم يستري با إلهي دينتا يا اسكاله دينتا إنك عليه سومالي دو عاتر هذا دينتا إلهي بالا قبيل كان إنك عليه دينتا إنك عليه المها كان إلهي باسكاله dhaqaalaha aad haysatay ilaahay baa iska leh xaaskaaga waa adoonta ilaahay aad uma lihid adu diintaad leedahay dhulkana ilaahay baa leh soo dhulka sheegata maanta dhulkana annaka alla bay koodhan annaka degnaa reerkayogaala dhulkan ilmahana waa curodkaygii aqalkana waa aqalkaygii gaadhigana waa gaadhigaygii diintana إلهي ما إسكاله شيخ هذا الجلسن إلهي نوحو لي الدين إنك إسكاله وأتممت عليكم نعمتي نعمة دايدين دوشينا كتام يلبا إلهي سلاني ماذا نعمة ولا ليال إله مسلم كادق إلهي يقوم هذه هذا وحكا لك وحبا كاما مغنب عدقا ذاتك مسلمين تمانتا يكون بسوريرين وحكا مغنب بجربا خير الدنيا والآخرة ماشي ويالينك حيسنا خير الدون وحي جري يا خير آخره وضدي اللقوه هنا يبقى إلهي إنك ينسيه مرع وضدها صومر ضدك اللو كرلا يا همانت آيات دامر كي سود دكتي يهودي با عمر بن الخطاب كويري يا معاشر المسلمين آيات دوشينا كسو دكتي ما أنت بويري ويهودي با عمر كله حدي أنك نوس صدق لهيد مالنت عيد باكي لهين عيد فرحب مركاس عمر نبي كان وشيء عليه الصلاة والسلام مركاب النبي يقول عيد أسي عيد الأضحى ما يناهين برسول كويدي سعيد عيد الأضحى صوماهم النبي كويدي لبضا فرحضود المسلمين تو أيليهين عيد الفطر إيوه يا عيد الأضحى والله فرحة محل لقوا فرحة عيد الفطر وحال لقوا فرحة صيام النهار يا قيام الليل كلا صور ما يستريبها هبينك وعيد مركل ليل هذا شوال كو وعيد ليل هذا حتى وضيضا فرحة ما حي لا فرحين أعماش إلهي الصور ما يستريبها يكون فرحين بالليل عيد الأضحى أنا محل لقوا فرحة شريعة الإسلام كمان أنت الله ما يستري أمضى مسلم كفرحة دي سوى الدين ويان مركا الدين تينك عليه
diintii inaku aan lahayn baa dadku maanta hangool iskaga hayaan hangool waan tukaday waxa kale oo ii sheegay ugu horan fartaas waa qayb kamid ah qofka jirkiisii laakiin qofkii oo dhan maaha salaadu waa qayb kamid ah diintii weeyaan laakiin diintii oo dhan maaha salaadu zakadu waa qayb kamid ah shariicadii laakiin shariicadii oo dhan maaha soonku waa qayb kamid ah diintii laakiin diintii oo dhan maaha xajki iyo cimradu waa qayb kamid ah diintii laakiin diintii oo dhan maaha diintan ilaahay markuu ka warramaya noloshoodu ku dhamaystiray nolosha saxaabada maalinta aayadda ay soo degayso oo anigii ka soo hadlee xataa qur-aanku meelku laguma kulmin bay ahayd laakiin noloshooda qur-aan ahayd noloshooda ahayd qur-aan xakam binu mutalib nin la odhan jiray hataa ninkaasi saxaabi maahayn taabici buu ahaa madiinat almunawar uu deganaa uu ka tegey wuxuu tegey magaalo la yidhahdo xums waxay ku taalla syria khilaafadii cumar binu khadaab radia allahu canhu dadka xujaydu markay yimaadaan maka iyo madiina u wareysan jiray ree markaa xums buu cumar markaa wareystay bal warrama see tihiin ma fiican tihiin waan fiicannahay waxay yidhahdeen ree xums markii hore dad fuqaraa oo saboolaan ahayn laakiin ninka xakam bin mutalib intuu noo yimiday akhniyaa baan noqonay akhniyaa waan dharagnay cumar baa ku yidhi war xakam bin mutalibku kumuha markaasaa lagu yidhi waa ninkii hebele faqiirka ahaayee masaajidka dhinaca ku tukan jiray markaa baa lagu yidhi war ninka inii yimiday nin maalqabeena ma ahayn faqiir buu ahaa oo fuqarada magaalada madiina iyuu ka mid ahaa sidee buu markaa aad ku noqoteen imaadka uu ni yimide maalqabeenno waxay yidhahdeen lacag noolama iman laakiin saaxibu lmadiina waa nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshii nebi maxamed buu nabaru noola yimiday yidhahdeen noloshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu nabaray bay yidhahdeen noola yimideen maanta muslimiin badan baa dalkeenna ka baxday oo dhulkaa gaalada u qaxday way hijroodeen odhan mayna way qaxeen waa qaxooti lafdulhijra waxaa iska leh diintaa iska leh hijrada hijra waa laaji'iin qaxooti bay noqdeen qaxooti dhulkoogii iyo markay aamini waayeen ayay yidhahdeen dadkaasaa ilaahay wax siiyey bal waxaa la siiyey waxaan la soconno waa dhaweytoon yurub joogay ayaa kuwa soomaaliya oo sweden jooga baan ku idhi halka inaku maanta aan joogno hadday gaaladani ay joogi lahayd soomaaliya ma ku soo dhoweyn lahaydeen baan ku idhi markaan arkay magaalooyin dhan oo masaajidda ka dhisan aad yaabayso oo dadku ay camireen ayaan habeen ku idhi markaa meel masaajid aan kula hadlayey halka inaku aan ku soo qaxnay inagoo dhasheennii afka ku wadana aan la imanay dhulkan ee cidna aynan dhibaato inoo geysanayn ee habeenkii saacaddaa doonto dariiq walba nabadgelyo aad ku marayso halkaa maanta inaku aan joogno hadday ayaku ay joogi lahaayeen oo ay dalkeennii ku soo qixi lahaayeen sideed u qaban lahaydeen baan ku idhi hadda bal u fiirso mid baa yidhi waan layn lahayn buuhi annaku hadday noo yimaadaan waa run ayaan ku yidhi waa run buu sheegay ninkaas waayo innakiibaa isbixini weynay marka magaal caddaan aan bixinaynaa marka mid baa berigii jabhadda ogaadee ku dhulka ay ka dagaalamaysa yaa oday baa nin gaal uu qabtay ul buu la dhacay baa la yidhi mid xabashiya si xun buu ula dhacay marka uu daalay mid kale mid baa arkoo ku yidhi intaa aad dilkiisa aad ku dhimanaysaa jannadii kaaga hadhee garaac buu ka yidhi intaa aad ku dhimanaysid baaba jannadii kaa xigtee si fiican u garaac biro ku dul dhiman yani saad u garaacaysa ku dul dhiman naftu ha kaaga baxdo innaku dadkeennii way baxeen maanta
meelo badan baan adduunka ay Soomaalida aan ugu tagno ku arkay laakiin iyaka inta la bedelay baa ka badan inta iyaku wax bedeleen afartan soo noqotay waa afartii Ilaahay u naxariistay boqolkii 99 way hadhay ogaada 2009 ma tagay Suudaan 25 kun baa lagu sheegay maalintaas inay haayeen Soomaalida ku nool 25 kun sanadkii dhaweetaan idhi war imisa ku joogtaan Suudaan wax 250 kun marmarayna bay yiraahdeen 250 kun 15 sano ka hor waxay haayeen 25 kun maantana 250 kun magaaleer baan tagay 7 kun baa ku nool tan kale 5 kun baa ku nool ayakii baa la bedelay maanta muslimkii laana muslimka adduunka maanta ku nool muslim risaalad xambaarsan maaha waa muslim ka fikiraya sideen anaguna nolol fiican u helaa ciyaalku nolol fiican u helaan waxaan u maleynaa nolosha fiican inay ku jirto maadado inoo badata waxaan garan weynaa nolosha fiican inay ku jirto ilaahay oo u dhawaano cilaaqo fiican la yeelano ilaahay muslimku markuu risaalad xambaarsan yahay waxbuu bedelaa laakiin markuu ka fikirayo caloosha buuxi oo ciyaalkaagana dhargi isaga markaa in la bedelo halis u yahay markaas hal nin ayaa tagay Xums reer Xums waxay ka marqaati kaceen nolosha ninka uu noola yimiday baan Ilaahay nagu bedelay bay ku leeyihiin waacid buu haabale waliba nin waacid buu dadka wacdin jiray aqniyadii buu la hadlay iimaaniyaadku kala hadlay aakhiradu kala hadlay zakaat almaalku kala hadlay sadaqadu kala hadlay markaas xoolahoogii bay qaadeen oo muslimiintu bay ku celiyeen ducafadaha hal qof oo muslim baahan oo muslima laga waayay wadankii madiinada almunawwara ayuu nabigeenu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam mar alle markuu nabigu masjidka fadhiistay lagu soo ururay meeshii uu fadhiistay masjidka noqon doonta erayadii uu horeysay yiri waa kii Abdullah ibn Salaam horta wajigiisaan eego wallahi wajigan waji nin been sheega ma haban idhi buu yiri afgiisaan dhageysto waxa ka soo baxday ya ayuha naasu dadow afshu salaama salaanta dhexdina faafiya wa at'imu at'ama dadkana cuntada siiyo qudiya wasilu al-arham qarabadi rixibkana xiriiriya wasallu bil-layli wan-naasu niyam habeenka dadku markay jeefaan salaata leelka kac oo tukada tadkhulu al-jannata bis-salaam nabiga alayhi salatu wasalaam jannada rabbigiin nabad qabad ku galeysana buu rasuulku yiri ahadiistas madiinada al-munawwara markuu nabigu yimid buu sheegaya maka hadalla kale nabigu sheegay maka markii la joogay yaqiinta iyo iimaaniyaadka umada laga dhisaayay aqeedada laga saxayay madiina markii la yimid akhlaaqda laga saxay akhlaaqda la beddelaya dhaqankii saxda islaamka la baraya markaas magaaladii madiina waxa laga waayay qof muslima oo baahan ba laga waayay magaaladii madiina baahidi maxaa daboolay xadiiskaas lagu dhaqmaya afshu salaam salaanta dhexdina faafiya أطعموا الطعام كجاجونين عنتيسيب ونبي سلوا الأرحام قرابة الرحم كان حريرية صلوا بالليل والناس النيام هبين كدتكم مركز جيفانا كعوا صلاة الليل كتكذب رسولكم حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6 لح ردوا السلام ونبي مسلمكم ولا القيس مسلم كشن بكلية شن حق روايات كلا النبي يقول لحبوا قارسية أدوكوا السلام ولا الكاء وعلي سلامته وحقك يقول لي أدوكوا يارو وحوناكوا خيره وكوا يارو أجيب أدو دارتو وحاوكوا دارتو وناك إنه يتحين أفولي وأسماء أدو هند السعود إلهي كما هدينا ودعي
hadduu bukoodana booqo oo ziyaaro hadduu dhintana buu nebigu dhahee aaskiisa raac hal qof hadduu magaalada madiina uu ka bukoodo baa la yidhi muslimiinta magaalada madiina ku nool dhammaantood ninka way soo buuqanayeen ninka magaalada madiina ku cusub ee qariibka wuxuu u malayn jiray waxaa dad ninkaas soo ziyaaranayo dhan inay qaraabo yihiin qaraabanimo kumay ziyaaranayn waxay ku ziyaaranayaan islaamnimay ku buuqanayaan zayn alcaabidiin caliy ibn xuseyn ibn caliy radia allahu canhum nin wuxuu ahaa alalbeytkii nebiga ka mida sal alla alay slam uu dhintay waa la aasay hal mar keliya magaalada madiina waxaa soo baxdoo la ogaaday 200 oo qoys oo masaakiin oo aan dharigooga dab la saarayn waa la shuureeyo waxaa la yidhi say ku dhacday 200 oo qoys hal mar keliya in la ogaado inay fuqaraa ay yihiin xataa masaakiin ma fuqaraa miskiinku baa la yidhi waa ka wuxuu cuna maanta haysta laakiin faqiirku waa ninka caawa reerkiisa waxba oolinba meel uga soo qaadan aan garanayn marka waa la yaabay iyo kii baa la weydiiyo lagu yidhi say ku dhacday waxay dhahaan garan mayne habeen walba saacadaha dammo manaqallada hortooda ka qaadanayna raashinkii maalintaan ugu filaa cidda keenaysana kama warqabna annagu raggii markaa maydka imaamka maydhay nin ka mida gacanta taagay wuxuu yidhi ila nebigu sal lla ly slam waa kiila ninka mayd maydha waxuu ku arkayna u qariya astura buu nebigu yidhi isagana ceebiisu akhira u asturaa ninka imaamku nin ahlbeytka nebigu cadab buu ahaa carabiya laakiin dhabarkiisoo dhan uu madoobaa baa la yidhi inaan sheegnaan diidanayne laakiin haddaan sheegaynaa bay yidhahdeen dhabarka imaamku dhabar madow buu ahaa uu ka duwanaa jirhkiisa waxaa la ogaaday 200 ee qoys habeen walba inuu raashinkooga qallada u hordhigayo naftooda umay noolayn iminka innaga keenna maalqabeenka waxaa laga yaabaa naftiisa iyo ciyaalkiisa u nool yahay ayagu waxay u noolaayeen ummadday u noolaayeen dhaqaalahay ummadda ku anfacayeen dabeecadda wanaagsan bay ummadda wax ku tarayeen aqoonta diineed ay ummadda dheer yihiin bay ummadda ku anfacayeen caqligoogay ummadda ku anfacayeen codkarnimadooday ummadda ku anfacayeen ibnu cabbaas radia allahu canhuma ayaa arkay nin maskiidka dhex fadhiyo aad u murugoonayo sidaa madaxa u haysta uu u tegey wuxuu idhi maxaa ku helay mukaatib buu ahaa mukaatib waa kan addoonka sayidkiisii ay kala qorteen ee yidhi magaaladan gali waan soo xoogsani lacagtan isku xorayn lahaa baan kuu keeni wakhtigaana ii qabo kaasuu ahaa markaa wuxuu idhi sayidkaygii xilligii aan la ballamay inaan lacagta u soo dhammaystiraa la gaadhay lacagtiina ma haya buu ku yidhi ballanka say u ilaalinayaan baleeg markaasuu ka yidhi dee ma kaala hadlaayoo wakhtiga ha ku yar dheereeye markaasuu in axbabta haddaad jeclaatid buu dhahaa way fiican tahay buu ka yidhi ina mari waa kuu raaciyey albaabka markay u dhowaadeen buu ku yidhi anasiita maa kunta fiihi ay min alictikaaf ya bna cammi rasuuli illah buu ka yidhi ictikaaf baad ku jirtee miyaadii lowday buu ka yidhi markaasuu yidhi ma ilowsani waan xasuusanaya inaan ictikaaf hay ictikaaf qofka hadduu ka bax maskiidka uu jabaya ictikaafka laakiin waxaan ku hayaa buu yidhi xadiisaan ka maqlay nebi maxamed sal allahu alay wasalam uu nebigu yidhi man mashaa ilaa xaajati akhiihi qof walaalkiiya xaajadiisa inuu u soo qumiyo u socda ama ha u soo qumiyo ama arrintaas inayba xallismine waxa uu ka fadli wuxuu la ajar yahay buu nebigu yidhi 10 sano qof ictikaafay buu la ajar yahay buu rasuulku yidhi muhimmaat alumuur umuurtu siday u kala miisaan weyn tahay bay saxaabadu yaqaaneen iyagu اعتكاف إنه المسجد كفرديا واعتكاف وعبادة شخصية ولكن إنه واحترانا وعبادة عامة ومضى أنفع يسويان خير الناس أنفعهم للناس ذاتك يا خير بدن نيك ذاتك واحترا خير بدن بو نبي
marka inakuna walaalayaal waxa la inaga rabaa inaan ku dayano dadkaas oo ummadda aan anfacno maxaan ku anfacaynaa ummadda kii dhaqaalaha iyo dhaqaalihiisa diinta ku bixiyo kii cilmi leh cilmiga ummadda ha baro kii waqti ilaahaysi waqtigiisa dacwad iyo diinta ku bixiyo kii caqli ilaahaysi iyo caqligiisa ummadnimada ha kaga shaqeeyo inagu dadkeena afkan ku hadla af Soomaaliga dadka ku hadla dadka dad ugu liitaanahay caalamka runta hadii la sheego waxaan nahay ummad aan korayn ma korno Soomaaligu ma koroba oo ma korays carruurta soo ma jira mid ma korays la yiraahdo ummad aan koray ka warrama ummad qabiil aan ka korayn qori aan ka korayn qaxooti aan ka korayn qaad aan ka korayn afartaas waa qaaf ka kacan qaaf qabiil qori qaxooti iyo qaad qabqablana ku dar qabqable nin walba imika reerkiisu halkay joogaan ayuu rabaa inuu ka dhisto maamul goboleed waan siyaraynaynaa sheekh Mustafa yiri war caalamka babaleeshka badan baa lagu tartamayaa maanta adduunka halka ummaduhu ay doonayaan ummad badan inay noqdaan adduunka la tartamaan inaguna reer baan isku haysanaa jilib oday baa la isku haystaa oday taariikh yaan bari aad u mutaabiciyay dadkan Soomaalida kitaab aan ka arkay matxaf ku yaala Harar فتوح الحبشة كتاب ليلادو واللح بقول أو سنة كهر قياس كتاب كواح لقري توبيات ولا دجالنت أحمد قري إمام أحمد قري مركو ودن كان جيس كأفريقيا أويمدي وحو أويمدي ذات كبر كنا له قبيل نسكول الله يا قبيل يا جيل الصومال سكول لينيس مركا إنا كرنا نبهنا مانتا ونكروس عنه ونكوش غينا النما oo dadkeena wacyi gelino oo dadka shaqaal loo sameeyay shaqadooda ay ka shaqeeyaan inaga shaqadeena waa diin inaan risaalad gudbina ilaahay noogu tala galay shaqadii la noogu tala galay markaan qaban weyna shaydaan baa ina shaqaaleysay markaas inagii baa markaas shaqo iska dhiganay inagii baa shaqo iska dhiganay markaas 32 sano ummad qaxaysa ka warrama habeen dhawata madaarka Addis Ababa markaan soo maray meeshaan ka wareegaba Soomaaliya bay kaga soo baxayo dhalinyar xagaad u socotaan Uganda xagaad u socotaan Senegal xagaad u socotaan Turkiya xagaad u socotaan Brazil kuwa xaramka tagayna xaramka ka tahriibeen waa dhaweeyay balka warrama halkeen ku socon kuwi qurbaha joogay oo ilaahay u soo noqday kii dalka joogay wuxuu soo tagay ana waxaan ugu talin lahaa dhageysiga si fiican u soo camaltaan diinta ka shaqeeyo xaya ka shaqeeyo diinta ka shaqeeyo dacwada ilaahay kartibu ina geliyay inaka kartideena maanta cidda ku dhacday شخصي صومالي صلاحية إلهي اللي أمضها كأي ما تعرف صفات كأن لا نهي أفضل صومالي بقولي أمضها بدا ما يستطيع مركان رجل مديني يسين مديني صلاحية إلهي اللي إلهي الدين بمقتل الدين تنهى مبحن إن شاء الله تعالى سيد النبي يوم الصوفة عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيها إليه قادم صحابته حين علي والبقعة شوف برقوا له وسيد الدم كيف يسعر من يأخذها بحقها بمنه حقيقة يا غير وحقيقة سيدي وحقيقة واقع قال كان يقول علم ما يقول دغالك لو قال يا دغال والله قال يا رسول الله كان يقول علم ما
عتي بكما كان أصحاب أبو دجانة أنا جاي ودي بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابة هو يا أبو دجانة سيفتح أرين أدق وقعتين ولص دقال كبار رسول في صحابه يقول ما دعوا حيكون هذا يا رسول الله لك يا أبو دجانة سيفتح أبو ديبتي بل صدوا صلى الله فيه بالله قال صدوا صلى فيه صدوا صلى مكة صدوا متكبرين لذلك كبر كبر الله يسنك هذا سوري وصعد وصعد إلى عين العبد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عليكم بالسكينة والوقار لكن عجيب بالرسول عليه الصلاة والسلام مرقام النبي صلى الله عليه وسلم ورنتي صعد إلى عين العبد لكن ما لها لا يحب جعله الرسول أبوك جعله يمشي وصي صعدا ونصيحة رضونا محاها كان بصدق وصوق عطي حرقه هو يروح ماشي يروح والله بيقول إلا مرحبا إنكم ماذا أقول رقالة عقلي كرتي وحي لها يسير وانا عين لكن ريه باللي من الله ومن دنيا بعد السماء إلى ما تسوالف حوتي الله مرة يكور مركا إن شاء الله إن الدعوة بحضة وذي الله يدرتي بحضة وتدكين الإستافريكا صوكا ما شاء الله هذا المجال هو لسنتين لكن واحد أنت لا المجال بشجاع عطول على اللسان حمر تضبط تميدي هل كي مريس أفريقيا ما أنت مريس أفريقيا ما أنت مريس بسنا بنجوا كنت صنعوا هذا حمر مريس ما أنت واحد مريس مريس ما أنت تسوى مريس وكنت صنعوا وعيب الله لا يعقل مريس دب الله بقى يا مات waxaan ku ilaalinaynaa marka waxa weeyaan wax ilaahay na siiyay haday dhaqaalada dadnimadeena waxaan ku ilaalinaynaa waa dacwada inaan diinta ka shaqeyno inaan maalkeena dacwada ku bixino inaan meel walba madrasad ka furno in dadka waddanka lagula noole masaakiinta dadka waddanka waa gaalo iska tibacsan oo masaakiina soomaalida kiri soomaalida ayaa magaaladayda midka uu ku leeyahay ورقال قال كينا قال هيك خير عشان اللي قال وهذا بعد زمان لا لا قال كوابا كان كل جوده وقال مسكين وما هي اسلام كعداوه وقبل بلد كصوت صوت المسكين زي مدارس مسؤولين عتقوا فيه من يسجل شعائر الاسلام وضد الدين كي مغالبه كم وجسد ما يتوبي أريد أسوي فؤادته غير عقارب فؤادته مركب فرصة لنا الحسن هذا فإذا سنة إن شاء الله تعالى إن اختلاف فراغ هذا إنسان تعود وبحدا اليوم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى سيف عمل هذا اجتماعي هرقيسي حصوة غيبا كوب الله تقل سبتمبر اجتماعي يجيبتنا نوك عليه كوب يتمكن الجنوري نوي بعد ربنا نوي بعد أجعلك يلوي شريف كي أول شريف كي يقولوا مرة وتشكيل صدق شريف ما شاء الله الله ينعم صوت ديال قلوب إن شاء الله صوت ديال قلوب إن شاء الله دنبينا الله عداف دنبينا والديتنا الله عداف ديت الله ينوم معاني مرل كينا الله شاشة وتات كينا الله ونحرجت أمن إيمانك الله ينوم زيادة مسلمين الموافقين من نوم بير جوان الله حسين ديك مسلم كدادنا الله ينو جوجي ويحدق ودنا ديك غدوغ الله كعلي وحي خير ما رسول الله الله وكال ماي بل كان نبدلدي الله ينو ادكاي كان امنيغي الله وشي ادكاي dadka gaalada waddanka kula nool ilaahay intuu ilaahay ugu talagalay allah soo xadeey waa masaakiin alxamdulillah soo xadeey dhalinyarada nugulada nolol ilaahay noo hagaaji sallallahu alayhi wasallam جزاك الله خير واحسن الله اليك شيخنا الشيخ حسين إلهي سبحانه وتعالى
anugu anfaco kalimaadka aad u qiimaha badan iyo waanada iyo dardaaranka haddii la isu dardaarmo waxaa la iska rabaa in la dhaqangeliyo haddii la isu dardaarmo khayr la isu sheego khayrkii lagu dhaqmay marka ilaahi subxaanahu wa tacaala dhaqankiisana na waafajiyo jazaakum allahu khayr wa axsanu ilaykum